Bismillahi Rahmani Rahiim waa video iyo mar kale casharadii ku saabsanaa Facebook training ama tababaradii Facebook ku saabsanaa. Maanta waxaan qaadan doonaa cashir ku saabsan sida aan u joojin lahayn videoska iyaga si automatic isku daara insha Allah taala. Waxaan tegi doonaa qaybtii aan wada naqaanay oo ay ahayd qufulka u dhaweyd flaartaas u jeedo ayaan tegi doonaa. Flaartaas ayaan ku dhufan doonaa. Waxaan kasii dooran doonaa setting-ka oo ah habeeyihii meesha markasta aan la tacaamulo oo aan Facebook-ga markaan wax ka bedelayno aan ka bedelno iyada kortag click sii. Waxaa noo soo furmi doonto qaanadii weyneyd ee ka koobnayd qaybihii aadka u fara badnaa. Maanta hadafkiina waxa waaye feature-ka ahi videos baan tegi doonaa. Qadka ayaa naga yara culus sorry aad baan uga xumahay. Wana soo baxaa video setting kana. Video setting-ka waxaan kasii tegi doonaa qaybta ahi how to play videos oo ah muuqaalada ha isdaaran iyaga adiga oo aan kor tagin ama adigoo maamulin click adoo siinin videoska markaad kor tagtid oo aad u dhowdahay meeshii videosku yaalay in iyaga si uncontrollable ay isku daaraan. Haddii ay ku tahay on videoski isaga ayaa isdaari doona si automatic laakiin haddii ay ku tahay off qofka Facebook isticmaalaya asaga inuu videogaas inuu soo daaro maahane iskiis videogaas iskuma daari doono. Dad fara badan ayaa ka cabtay in gaar ahaan kuwa isticmaalo internetka GB-ga badanaa markay isticmaalayaan waxay soo kiciyaan browser by the browser ama Google Chrome-ka aan isticmaalayo especially waxaa si automatic xitaa ku sii as default u yahay on qaybta by the browserkaas marka qofka videoski markasta wuu isdaaraa markasta oo home-ka ama Facebook-ga oo fiirinayo qoraaladii la soo dhigay comments-ki shareski like marka inuu eego muuqaaladii ayaga isku daarayo marka dib haysto dad aad u fara badan way marka off iska dhaadid automatic videoski isma daarayo inaad adigu daartid maahane oo fiirin doonaa. insha Allah taala intaas ayaan ku soo koobi doonaa cashirkii ku saabsanaa sidee baan u joojin karnaa videoska iyaga isku daaro. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wabarakaatuh.